inanta qol baa lagu xidhaa la yidhi yaa deetana inanta asxaabtii markay raadiyeen ay gurigii tageen waa loo diiday inay gurigii galaan yaa gurigii inay galaan oo inantii arkaan waa loo diiday inantii de sidii bay waxa la yidhi gurigaa ugu jirtay mar baa waxa la yidhi walaalkeedoo Norway ka tegey wiil yaroo walaalkeedoo Norway ka tegey ayaa u galay taleefon buu gabadha her best friend ugu dhiibay waxay tiri waan bukaa waa lay dilaa waa lay haystaa laakiin waxay u badan tahay bisha August 30keeda in laysoo fasaxo laysoo daayo asmana way qabtay baa la yidhi yaa deetana waxaa ku xigtayba shalayto way dhimatay yaa hooyadeed qof baa hadda soo qoray hooyadeed 2018kii bay dhimatay waa waxaan isu weydiinayay gabadhu miyaana cid lahayn cid ka daba tagta oo markay waayaan raadiya because waa gabadh hooyadeed dhimatay haddeeraa qof soo qoray yaa haddeeraa qof soo qoray hooyadeed way dhimatay maanaan garan marka aabaheed waa nool yahay miyaa aabaheed iyo hooyadeed I think iyada keligeed miyay isu dhaleen malaa labaduba dib bay u guursadeen baan malaynayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحمد عثمان حسن دعالة وحن سلام يا دمان فاميلك أهلك يا قرابة سدا سوكل وحن سلام يا أصحاب تيدا جودهان دلك أنت جوكتا أنت دبادة جوكتا وحن هاي سدان حسين محمد عثمان حسن دعالة وحن هاي كمع عثمان حسن دعالة ولا الكل وحنا دونا يا أنا كهذا الجريدة كمع رحمة الله عليها إلهي ونحرسته waxaan ahay qoyskan ninka ugu weyn raa Cusmaan Xasan Ducaale aniga ugu weyn kamacna waa walaashay ila dhalatay waxaan baraha bulshada ku arkay dad fara badan oo ka hadlaya geerida kamac qaar waxay ku sheegayaan in assassination loo dilay oo ay u dhimatay political assassination qaar waxay sheegayaan in dhaxal qoyskeeda adeerkeed eedadeed iyo dad qaraabo ah arrimo dhaxal iyo wax la xiriira in loo dilay qaar waxay sheegayaan in xibno qoyskeeda ay dileen qaarba macluumaad bay sheegayaan waxaana macluumaadkaasi faafinaya dad sheeganaya inay qaraabo iyo xigto la yihiin kamac Cusmaan Xasan Ducaale haddaba waxaan ummadda u sheegayaa ma jiro qof qoyska kamac kamida oo arrinta kamac geerideeda ka hadlay qofka ugu horeeya ee ka hadlaya waa aniga oo ah walaalkeed familkana ninka ugu weyn Maxamed Cusmaan Xasan Ducaale inaan ka hadlana waxa ugu kalifay macluumaadka jahwareerinta been abuurka ee sal iyo raad aan lahayn ee baraha bulshada la yaacinayo Facebooka Twitterka iyo guud ahaan baraha bulshada ummadda waxaan u sheegayaa Soomaaliyeed iyo inta taqaanay kamac Cusmaan Xasan Ducaale ehelka iyo qaraabada asxaabta macluumaadkaas aad aragteen qaarkiin aad maqasheen wax ka jira haba yaraatee ma jiro wax sal iyo raad ah oo ay leedahay geerida kamac iyo dadkii ka hadlay iyo siday uga hadleen wax sal iyo raad ay leedahay ma jirto hal mid baa sax ah oo dhaba kamac way geeriyootay raxmatullaahi calayha ilaahay u naxariisto waxayna ku dhimatay magaalada Muqdisho waxaana lagu aasay magaalada Muqdisho oo janaasada lagula tukaday aaskeedana waxaa ka qayb galay familkeeda ehelkeeda iyo qaraabadeeda qaar macrifadeeda kamida kamac arrinta ku saabsan geerideeda aabaheed baa nool aniga aabahay Cusmaan Xasan Ducaale kamuusan hadlin qof kale oo xubnaha kamida walaalaheed baa jooga kamaysan hadlin anigoo ninka qoyska ugu weynna hadda ay ugu horreysay inaan ka hadlo sababta aan uga hadlayna wax kale ma aha macluumaadka beenta ah ee geerida kamac laga faafinayo inaan caddeeyo inaysan waxba ka jirin fadlan ha rumaysanina muuqaalkana sheer gareeya kamacna way geeriyootay ilaahayna ha u naxariisto dadka ugu horreeya taabanaysa xanuunka ku haysana waa inaga dhammaanna ilaahay samir iyo imaan ha naga siiyo waxaan kaloo arkayay dad fundraising ku raadinaya oo dhaqaalo ururin kamac dhaqaalo uma baahna loo aruuriyo waa ay geeriyootay waa marxuumad qofkii doonaya inuu isaga dhaqaalo aruursado isaga ha aruursado adiga nool magacaada ku aruurso
dadka fariinta nooca la gaarsiiyey waxaan kula talinayaa inaysan shilin iska bixin idinkoo mahadsan wax dhaqaale ah arrintaa ha ku bixinina waayo ma jirto codsi qoyska Kamac ay soo jeediyeen ama xubin ka mid ah qoyska Kamac oo dhaqaale aruurin codsaday sidaa daraadeed arrinta dhaqaale aruurintana hala joojiyo macluumaadka baraha bulshada la wareejinayana ee Kamac waa la dilay saasaa la yeelay saasay u dhimatay sababtaasay u dhimatay kulli waa waxba kama jiraan waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu